munaasabadani ballaaran ay ka soo qayb galeen Qurbajoogta waxgaradka iyo haweenka gobolka Togdheer ayaa ka wada hadlayay horumarinta magaalada Burco. Hadhimo Sharafeedka oo ay soo agaasintay ayaan xaaji October ayaa ka dhacday hotel Nasteexo ee magaalada Burco, iyagoona ka doodayay doorka Qurbajoogtu ku leeyahay horumarka gobolka Togdheer, gaar ahaan magaalada Burco, iyagoona isku raacay in loo midoobo horumarka. halkan dadka fadhiyo waa dadkii asaliyan gobolka Togdheer ka soo jeeday, kuwii Qurbajoogtaha iyo kuwii dalkaba joogay. sababtoo ah waxaan doonaynaa inta halkan fadhido Qurbajoogta in baahida gobolka ay ogaadaan si madaxweynaha cusub ay manay ku doonaba ha noqdeen inagu mar walba waxaan ugu yaqaan heer gacan in madaxweyne kasta inaan garabka qabano ee uga dhaadhicin hayeen siduu ugu shaqeynayaa gobolka Togdheer, iyagana uga shaqeynayaan baahida gobolka taala. ujeedada koowaad waa taas. hargeysana waxaan u maleynayaa meesha tagtaba waxaa lagu caawiyay dadka masaakiinta ee dadka walwaalan, maalinta tiifiyada laga hadla, lacagaa loo ururiyaa, waxyaabaha cidda samaysan cid kale maaha. waxay u badin dadka Qurbajoogta oo ku soo noqday magaalada Hargeysa oo u qabtay dalkooda wax. marka waxaan doonaynaa qoladeedan heer Burco iyagaaba dhoofka ku horeeyay inay kaga daydaan magaalada Hargeysa walaalahayga degan oo wax badan noo soo kordhiyaan. halka lagu raacay Qurbajoog iyo daljoogba inta dad loo sameeyo la daba gala pointiska aynu soo qaadayno, xanuunka, horumarka, wadooyinka, iskuulada la improve gareeyo, waxa soo dhamay dadkan aad u maartay shaqaalaantu aad u saameysay. waa important in la jeheeyo haddaynu ideyada hello ideyada la kobciyaa, fikradda la kobciyaa, fikradda guul gaaraysa. ku maasantayna walaasheen ayaa xaaji October ay noo soo samaysay caawa, iyadoo istriibal Qurbajoogga si cararaya Hargeysa ku sii cararaya baliiro jooji oo magaaladiina ma garanaysaa caawa inta ka faa'iideyso. runtii way wanaagsanayeen in badan aynu haano oo aynu discussion gallo oo aynu waxyaabo badan ka wada hadalno. ayaan xaaji October waxaan leeyahay waad mahadsan tahay, waxaad isu keentay dadkaagii iyo dadkaagii. waxaad tiri ka hadla maxaynu u baahanay, gobolkeenu u baahan yahay, waxaynu u baahanay wax badan. waxaanu soo aragnay baahi dad marka loo baahan yahay in lagu guuro la yahay noo codeeyo oo wax noo sameeya, wax dambena aan lagu celin baanu soo aragnay. laakiin marka labaad waxaan si gaar ah u xusayaa oo salaamayaa uguna mahadcelinayaa ayaan xaaji October oo runtii lahayd fakarka iyo qabashada munaasabadan. waxaan leeyahay ayaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. runtii qof dhalinyaro ah oo firfircoon oo maaragtay kaalin muhiima kaga jirta bulshada ayaa tahay. waan ku mahadcelinayaa, waanad mahadsan tahay. dadkeedana waxaan ku baraarujinayaa inay arkaan oo u sheegaan oo yidhaahdaan dhibaatadaasaa jirta, sida jidadka, wadooyinka, xashiishka, maxay hayteen guri wal oo wacan oo wanaagsan oo maaragtay meel yar laga hor dhisay. waxaan kaloo mahad gaar ah u soo jeedinayaa ayaan xaaji October iyo tiimkeeda runtii oo aad iyo aad runtii noo soo dhaweeyay. aad baad ugu mahadsantihiin baan leeyahay ayaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ayaan xaaji October, agaasima ayaan xaaji October oo halkan isugu keentay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. ilaahay waa mahadle. waxaan leeyahay ayaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waa inaan aad u firfirco way ku mahadsan yihiin inay dalka wax u qabteen oo dalka ay ama maxaan ku dhahdaa noloshooda gacanta ku hayaan ama soo dhiseen. qolada reer Burco waxaan kula talinayaa, Qurbajoogga reer Burco aad waxaan ugu talinayaa Burco inay Hargeysa dhista maaha, Burco inay gobolkeeda dhisto oo soo noqoto weeye. Mahad Ali Goodir, Star TV, Burco.